Mudanayaal iyo Murwooyin, soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Waxaan weli ku dhex dabalanaynaa qulqulkii taxanaha ahaa ee casharadii aan kaga hadlaynay Trainline-ka. Trainline-isku waa qayb muhiim ah. Waxaan ka soo hadalnay qeexidii Trainline-iska, waxaan ka soo hadalnay qaacidooyinka Trainline-iska, waxaan ka soo hadalnay sida loo sawirto iyo meesha saxda ah ee la dhigto ilaa anagoo kasoo bilownay 1 bil ilaa aan ku geynay 15 daqiiqo. Qaybtanna waa qayb muhiim ah oo aan kaga hadlayno waxa weeye dhammaystir iyo casharkii kan ka horeeyay wax aanan kaga hadlin oo muhiim ah oo Trainline-iska iyo meelaha saxda ah ee la dhiganayo iyo sida loo dhiganayo iyo sababta aad u dhiganaysid meeshaas inaad ogtahay. Hadda waxaan ku jirnaa lacagta tan oo ah lacag ka duwan sababtoo ah lacag walba waxay samaysaa qaab dhismeed gooniya iyo qaab dabiici gooniya iyo market structure iyo market nature gooniya oo khaas ah oo lacagta khaas u ah bay samaysaa. Marka waa inaad adoo adeegsanaya qaacidooyinkii Trainline-iska aad lacag walba falanqaysan kartidna. Mar walbo marka time frame fog ka bilowdid waxa weeye lacagti waad helaysaa meesha saxda ah ee aad Trainline-ka dhiganaysid. Tusaale, Trainline-kayga hadda ma saas u dhiganayaa mise sidana u dhiganayaa mise saana u dhigayaa. Okay, waa muhiim. kow waa khalad, 2 waa khalad, 3na waa khalad. 3da midna uma dhiganaysid. oo waa maxay sababta aad 3da midna u dhiganay khalad u yihiin? Sababtoo ah kan koowaad haddaa ka bilowno intaas koraa isqabadsiisa balse suuqii oo dhan hoos buu kaa jiraa oo intaasoo signal ah oo dhan baad mar walba ka warqabay sida u dhigatayna waa khalad. Why buu kan kalena khalad ku yahay? Kani wuxuu khalad ku yahay haddaan soo celino kii kale halkan ahaa. Kani wuxuu khalad ku yahay isna sababtoo ah waxa hoos kaa jira signalskii oo dhan baa hoos kaa jira. Halkan korana wax badan baa ku dhaafay. Marka maxaa samaynaysaa? Kan kaloo hoose muxuu isna khalad ku yahay? Kan hoose isna wuxuu khalad ku yahay meel aan habboonayn baa dhigatay. Mar walbana waa inaad tahay update oo Trainline-iska la socotid mar walba wejiga iyo marxaladda uu galayo. Waa maxay marka sida saxda ah? Haddaa qaybta hoose fiirisid iyadana ma saana u dhiganaysaa? Ma sida tan baa u sawiraysaa? mise saan baa u sawiraysaa? iyadana 3daba waa khalad. qaabkana u sawirto dhan waa khalad. See saxa marka sababtaysa khalad ku yihiin waa maxay? Tan markaa khalad fiirisid suuqii oo dhan ba halkan uu kaa jiraa. Tan kale markaad fiirisid suuqii oo dhan kor buu kaa jiraa. Kanna markaad fiirisid intaanoo signal ah oo ku dhaafay. Marka sida saxda ah oo quruxda badan oo Trainline-isku isku lahaanayaan waa maxay? Haddaan hadda kan halka ka bilaabo saaxiibayaal oo saan dhaho oo kan kalena halka ka bilaabo saan dhaho qaab fool xun weeye oo ujeedaa ma aha Trainline. Trainline-ka inuu iska soo horjeedo isla egyahay si qurux badanna isku waafaqaya la doonaya. Trainline-keena waxaa ka bilaabaynaa saaxiibayaal barta tanaa ka bilaabaynaa. Waxaan doonaynaa baan dhirahnay haddaad qaacidadii xasuusataan Trainline-ku waa inuu kuu soo qabsanayo 3 mar iyo wixii ka badan. Tusaale, halka haddaad fiirisid 1 ujeeda halkaas sooma signalkani wuxuu ahaa signal sell buu ahaa. Okay, halka kale signal kale oo sell ka baxay. Halkaasna waxa ka baxay signal kale oo sell ah. Waa gaari doontaan heerka kan oo ah heer uu qofku indhaha ka cabiri karo meesha uu Trainline-ka dhiganayo markaad noqotid qof professional ah. insha Allah waadna noqonaysaan haddaad ku jirtaan macadka kan. Halka waa ujeedaas si cajiib ah meelaha farlaaraha dhiganay halkan signal baa ka baxay
halkaasna signal baa ka baxay, halkaasna signal baa ka baxay. waa sida quruxda badan oo aad u dhiganaysid una sawiranaysid train line-kaaga. cajiib. mar walba waa la soconaysaa markii uu suuqu halakan joogin, ya intii uusan suuqu halaka joogin, haddii aad soo qaadatid intuusan suuqu halaka joogin, bartan intuusan joogin waxaad ahayd update baad ahayd, ya train line-kaagu halkaa kuuma oolin ee si kaluu kuu ahaa train line-kaagu oo saasuu kuu ahaa, ya waa la socotaa sooma, saasuu ku ahaa train line-kaagu, train line-kaagu saasuu ku ahaa. yacni waxaa kaloo leeyahay mar walba inaad update tahay oo aad tahay qof mar walba feerjigan waa muhiim. mar walba train line-keenu markii hore saas buu ahaa, laakiin maxaa isbedelay? fiiri siduu noqday. fiiri saaxiib yaal siduu noqday. sida siduu noqday suuqii. si fiican u daawada. okay siduu noqday suuqa u jeedaa wuu dhaafay meesha. maxaa lagaa doonayaa marka? inaa update tahay. oo see update ku noqonaysaa? waxaad ku noqonaysaa adiga oo tan halakan keena, u jeedaa sooma, sidaas adiga oo u durkista ushaadi oo ka dhiga mar walba in aad tahay update waa muhiim, ya sa adoo isku qabadsiiya si qurux badan. tii halakan ahayd halkaa dhiga fallaartaadii, okay si qurux badan isku qabadsiiya, tanna soo durkiya oo bartaa dhigta. hadda waxaa ujeedaa marka si qurux badan in uu kugu sawiran yahay train line-kaagii oo cajiiba. maxaa yeele mar walba update baad ahayd, waa durkinaysa. halaka wuu ku dhaafay signalka kani, waa laga gudbay waqtigiisii marxaladiisii, balse waxa loo gudbay marxaladda tan oo suuq inuu halkaa marayo. markaad fiirisid marka qeybta hoosena kubeegeedii halakana ka bilaabaysaa, iyadiina wataas ushatan si qurux badan baa train line-kaasna u sawiranaysaa oo ujeedaa sida quruxda badan oo mar walba cirifkaad u saartay oo hufan oo quruxda badan. si cajiiba oo qurux badan baa tanna u sawiratay. kalarkaa bedelanaysaa cagaar, halkaas signal baa ka baxay cajiiba oo cagaara, oo ujeedaa sooma, okay signal cajiiba baa halkaa ka baxay. ishada kale soo qaado, kadibna halkaas wax ka baxay signal cajiiba oo qurux miiran baa ka baxay. waxaa ujeedaan marka in halkaas train line qurux badan uu kaaga samaysmay markaad fiirisid, ya train line cajiiba oo qurux miirana inuu halkaa kaaga samaysmay. badi dadka marka waxa waala marka laga hadlayo market structure-ka waxa waalaya qofkii candleliska waalaya markuu train line-ka sawiranayo. halkaas soo dhigo train line-kaagii. train line-kaaga marka halkaas soo dhigatid waxaad arkaysaa marka aad si qurux badan u sawiratid, yacni aad ushaada ku sawiratid in si qurux badan uu train line-kaaga kuugu sawirmayo, ya haddii aad ku practice gareynaysid, ku celcelinaysid, practice fara badan buu u baahan yahay suuqa kan marka aad sawiranaysidna. ujeedaa saaxiib yaal si cajiiba, ya kadib wixii dhexdiisa ka samaysmay oo dhan halakanaad ku arkaysaa suuqa wixii ka dhacay oo dhan halakan suuqaad ku arkaysaa qaabkii oo dhan iyo sidii cajiibka ahaa oo suuq u samaysmay oo dhan dhexbartamihiisa oo dhan halkaasa saasa ku sawiranaysaa. marka waa muhiim qofku mar walba in uu waxa weye sawiran karo marxalad kasta uu suuqu gelayo. marka qeybtaas waa sida quruxda badan oo hadda u sawiranaysid waxa weeye train line-kaagii, ya si cajiiba oo qurux badan ujeeda inay isleegyihiin, ya si cajiiba. kadib baa marka taas ku practice garaynaysaa. waana muhiim inuu qofku sidaa u fahmo qaabka saxda ah oo uu u sawiranayo train line-kiisa. marka laga hadlayo market structure-ka, hadda markaad fiirisid waxaad arkaysaa suuqani halakan wuxuu ka sameeyey wax cajiiba, halakana wuxuu ka sameeyey wax cajiiba.
markaad fiirisid. Okay, markaad soo jirtid marka hadda structure-ka suuqa markaa soo jirno hadda oo halkaa kasoo jirno ilaa halkaa keeno waxaad arkaysaa suuqani inuu sameeyey wax isku mid ah inuu sameeyey arkaysaa. Okay, hadda halakan ilaa iyo halkaa soo jirno waxaa arkaysaa wax isku mid ah oo cajiiba inuu suuqani sameeyey baa arkaysaa saaxiibayaal. Okay, waxaa arkaysaan wax cajiiba oo isku mid ah inuu suuqani sameeyey arkaysaan. inuu sameeyey wax cajiib ah oo isku mid ah baad arkaysaan saaxiibayaal. wax cajiib ah oo isku mid ah inuu sameeyey baad arkaysaan. wax cajiib ah oo isku mid ah inuu sameeyey suuqa kan baad arkaysaan. wax cajiib ah oo isku mid ah inuu suuqani sameeyey arkaysaa halkaas. ujeedaa sooma? waa isku midkii waxa uu sameeyey suuqu balse waxa uu ka kala sameeyey laba meelood oo kala duwan buu ka kala sameeyey. ujeedaan sooma? kalarka haddaan idiin bedelay oo ujeedaan laba meelood oo kala duwan buu ka kala sameeyey. halakan tani waxay la eg tahay tan, tanna waxay la eg tahay tan, laakiin ballaca iyo qaabku ha kala duwan laakiin waa isla midkii. yacni suuqa laba meelood oo kala duwan buu ka kala sameeyey. kadib inta tan markuu sameeyey suuqa oo halkaa correction ka galay muxuu sameeyey marka? fiiri saaxiib waxa uu sameeyey saaxiibayaal si qoto dheer u dhuuxa. halkaa wuxuu ka sameeyey suuqa markaa waxa uu ka sameeyey wax cajiiba buu suuqa halkaa ka sameeyey. ujeedaan ilaa iyo inta uu dhaqaaqay isla cabirkii buu leeyahay. yacni waa market structure-ka qeybta sare baadna ku baran doontaan waxa kan oo dhan. marka inta tan jirtid markaa oo halaka ka jirtid waxaad arkaysaa ama si qoto dheer u fahmaysaa qaabka ay isku leeyihiin. qaabka ay isku leeyihiin si cajiiba waa market structure iyo qaab dhismeedkii suuqa oo hufan. waa qaabka aad ku fahmi kartid meesha ay ka dhacdayna waa maxay? waa trend line. ujeedaan sooma? si cajiiba maasha allah. waxaanoo dhan waxa ku baranaysaa waa market structure-ka iyo qaab dabiicigiisa. si kale haddaad fiirisid halaka wax cajiibaa ka dhacay mudanayaal iyo murwooyin. inta marka ila fahantay iyo qaabkii trend line-keena u sawiranay cirifkii saarsanay usheena iyo xariiqinteena kadibna waxaan guda gelaynaa one day baan tegaynaa. one day markaad tegtid wax cajiib ah baa marka halaka ka dhex muuqda. suuqu halaka muxuu ka sameeyey marka saaxiibayaal? maxaa keenay suuqan inuu halkaa aado? suuqan wax cajiiba buu sameeyey saaxiibayaal. markaad fiirisid oo si qoto dheer u fiirisid suuqan halaka waxa uu ka sameeyey wax cajiiba uu ka sameeyey halaka markaad fiirisid suuqan. oo suuqu mar walba uu sameynayo yacni waxa weeye labada garab iyo madaxa wuxuu sameeyaa wax la dhaho qaabab kala duwan buu u sameeyaa. haddaan naglinkeena halkaa saarno soo qaadno correction buu ku sameyn karaa garabkii bidix iyo garabkii midig. correctionka markuu ku sameeyo kadib maxaa dhacaya? kadibna waxaa dhacaya in uu sida tan u sameeyo correction halka correction kale ka sameeyo kadibna all the way up. maxaa ku cabiranaysaa? waxaa soo qaadanaysaa cabirkaagii sidii aad u cabiranaysay istaraatiijiyadda darwish strategy-na aad ku baran doontid. okay, madaxa halkaas oo dhan si dhammaystiran kadibna halkaa dhig. waxaa arkaysaa inuu cabirkii ku tegay good confirmation. sida kale oo u cabiran kartid waa sidee? sida kale oo u cabiran kartid waxa weeye suuqu halaka muxuu ka galay? muxuu ka sameeyey suuqu halakan saaxiibayaal? waxa uu ka sameeyey correction wax la dhaho ka sameeyey sooma? kadib muxuu kaloo ka sameeyey suuqu halakan? wuxuu ka sameeyey wax la dhaho flag buu ka sameeyey saaxiibayaal. flagkii qaad halkaa dhig kadib waxaa arkaysaa inta uu suuqu socday. taasna waxaa la dhahaa waa market structure-ka darwish strategy-na oo ku baran doontaan iyo qaabka loo falanqaysto. okay, one day baan joognaa. one day markaan tagnay maxaa samaynaysaa marka saaxiibayaal? one day markaad tagtid waxaad arkaysaa qaababkii marka suuqa kani siduu soo kala wareegay wuu tegay kadib muxuu sameeyey suuqa halaka ka sameeyey saaxiibayaal? wuxuu ka sameeyey halaka wuxuu ka sameeyey correction buu ka galay. maadaama uu correction ka galay weli waxaad adeegsanaysaa trend line-kii markaad sawiratid patterns-kana casharada waxa dambe qeybtan asaasi dhexe baad ku baran doontaan kuna arki doontaan insha allah.
halkan wuxuu ka sameeyey flag buu ka sameeyey wax la dhaho bullish flag kadib suuqii markuu flagka sameeyey maxaa dhacay inuu suuqii intan soo dhaqaaqay oo kale uu suuqii dhaqaaqo oo uu halkaas oo kale uu gaaro waa ujeedaa saaxiibayaal intuu kan sameeyey dhaqaaq halka kasoo sameeyey dhaqaaq la eg buu sameeyey kadibna wuu sii dhaqaaqay suuqii si kale haddaad fiirisid halka suuq waxa uu ka galay correction buu ka galay correctionka markaad cabirtid maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa cabirkii halkana cabiranaysaa ilaa inta uu suuqu dhaqaaqay kadibna dhaqaaqaas kale suuqu sameeyay suuqan oo dhan wuxuu ku socdo waa cilmi iyo aqoon ee iskama socdo mudanayaal iyo murwooyin ee sidaa ku ogaada kadib suuqii muxuu galay inuu sameeyo reversal uu soo galo wareego halkan uu soo taabtay hore meesha tan uu dhowrka mar soo taabtay kadibna uu ka soo galo wareego waxaan tegaynaa markuu marxaladda dhabta oo hadda ku jiro 4 hour baa tegaysaa markaas okay trend line-kii weli iyo istaraatiijiyadii baa isku adeegsanaysaa trend line-kii iyo waxa weeye qaabkii dhismeedka suuqa baa adeegsanaysaa kadib waxaa adeegsanaysaa meeshii u sarreysay suuqa adoo ka bilaabaya suuqu kadib waxa uu sameeyey halkan ilaa iyo halkaas adoo xariiqintaadii sawiranaya okay suuqu marka kaba soo qaada inta tani maysan jirin maxaa sawiraysaa marka halkan uu markii hore marayay soo ma jeedaan bartan uu marayay intani maysan jirin halkaas ka balse trend line-ka hadda kor baa u qaatay oo sababta uu qaaday waa maxay sababta suuqii halkan uu galay oo meeshii hore meesha tan uu samaysmay marka mar walba waa inaad cirifka saartaa candle-kaaga kadib soo qaado halkan ka soo bilow ilaa iyo halkaas qabadsi adigoo adeegsanaya trend line-kaaga si hufan halka waxa ka dhacay correction wax la dhahaa ka dhacay suuqii uu ka sameeyey markaad fiiriso marka correctionka kan uu suuqu sameeyey waa correction cajiiba maxaa lagaa doonayaa marka inaad mar walba tahay update aad tahay okay oo la socotay marxaladda uu suuqu sameeyay maxaa keenay marka suuqu inuu halka ka soo kala wareego sabab baa keentay iskama soo kala wareegin suuqu waxa uu sameeyey waxa la dhaho double top uu sameeyey waa baran doontaa double top kana waxa la dhaho waa suuqu meesha hore usoo taabto mar kale soo taabtay okay oo halkan markii hore uu isna ka kala wareegayay muxuu suuqu halka uga kala wareegay wuxuu soo meeyay isaguna sidoo halka sameeyo kale wuxuu sameeyay waxa la dhaho double top uu sameeyay isna oo waa ka suuqii halkan isna soo taabtay isla tabtii oo kale hadda sameeyo oo ka duwan laakiin goobta hore halkan oo kale uu sameeyay sababtaas uu soo kala wareegay isla bartiina uu ka laabtay marka soo cabiratid dhex bartamaha aad cabiratid isla intii oo kale uu soo dhaqaaqay suuqii isla bartii buu yimaaday dhaqaaqu kii hore halka ka sameeyay iyo kana way isleeyihiin waa market structure-ka oo qaybta kale ba ku baran doontaan trend line marka faanta halka suuqu wuxuu ka galay correction reversal correction channel baa la dhahaa buu ka sameeyay halkaas oo trend line meel uu suuqu ku kala wareegay correction ka sameeyay kadib muxuu sameeyay dhaqaaqan uu sameeyay maxaa cabiranaysaa daaribta dhex bartamihiisa cabiranaysaa ilaa intaas dhiganaysa sababta dhex bartamihiisa soo cabiranaysa waa maxay kubeekii halkan uu suuqu soo gaaray oo jeedaa kadibna bartan uu yimaado halkan laga celiyay marka oo jeedaa marka mudanayaal iyo murwooyin waa maxay sababta halka looga celiyay marka waad fahmi kartaa meesha tan waxa ay ahayd marka waa muhiim qaababka ilaa iyo 15 minute baad tagi kartaa oo u falanqeysan kartaa qaababka quruxda badan ee suuqa kan aad uga trade gareyn kartid mudanayaal iyo murwooyin waxaan ka hadlaynay sawiranay ilaa iyo si cajiiba oo qurux badan hadda markaa meel sare tagtid sida quruxda badan oo cirifka noogu samaysan yahay fiiri oo qaabka cajiibka ah uu noogu samaysan yahay correctionkan iyo trend line-ka sawiranay iyo meeshii aan sheegnay inuu ka soo laabto suuqii tan waxaa la dhahaa mudanayaal iyo murwooyin waxaa la dhahaa waa qaabka trend line-ka uu suuqu u sameeyo iyo sida aad u sawiran kartid trend line saxa adoo adeegsanaya cilmigaaga iyo aqoontaada sirtii suuqa forex waxay kugu jirtaa Darwish Academy taxanii waxaan ku jirnaa trend lines-ka iyo sida saxda ah qofku u sawiranayo gabar iyo wiilba mudanayaal iyo murwooyin waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar inaad ka faa'iidaystaan sirta suuqa kan ee idin dhex taala Darwish Academy waa mahadsantihiin mar iyo marar badanba trend line-ku waa sirta suuqa kan